dadka ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya ee dhawaan laga soo raafay deegaanada maamulka Somaliland ayaa maanta lagu soo dhaweeyay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug kadib soo dhaweynta maamulka caasimadda ayaa sheegay in dib u dejin u sameynayaan dadka la soo barakiciyay haddii ay diyaar u yihiin qaar ka mid ah dadka la soo barakiciyay oo nala hadlay ayaa u mahad celiyay shacabka caasimadda garab istaaga ay u muujiyeen سفرنا قارقي وندرب وانسيننا قارقي حرسنا وانسيننا انتي بيهد هذا دكان هذا انت دوبدان قاري aan socono wax hada deegaan rabo ma ku jiro waa wax dad xoogooda u bartay inay cunaan sidiina hada alxamdulillah shukr rabbil alamin aan ku soo baxnay hada Soomaaliya hala ogaado wax walba inay dhamaad leeyihiin bilaaw in leeyihiin hadana dhamaad way leeyihiin cuntada la cunaay bilaaw bay leedahay marka hor baahi ay leedahay laakiin marka dambe dherega yeelanaysa مفند جلاسك بيا عابيست مركز دم بوبوح مركز دم فارق بونقنيا وحول بيني بلاوي دمات إليهن هلو تشتو الحمد لله هذا الصومالي دل كينا جوجنا بقول وين لون هاي أدين كنا Dhuusamareeb مع المعمول كده بقول آدي بات سنتين واتكم سنتين دم بيجينا الله داف walaalahay ummadeena Soomaaliyeed aad baad ugu mahadsantiin soo dhaweynta aad noo muujiseen sidaan u soo baxnay ilaa hadeer aad iyo aad baan loo soo dhaweeyay ajri xasanaadna ilaahay ka siiyo ninkii soo dhaweynta wax ka qayb qaatana ilaahay ajri xasanaad Allah ka siiyo marka walaalayaal ummadda Soomaaliyeed meel bay joogto hamidooda ha noolaato ummadda duqumaraadi la kala saaray Soomaaliyeed dalkii u dhashay in la kala saaro maanta hore inuu maan arag hadarna maan arag balse Soomaaliland waxay samaysay waa wax laga xishoodo lagana khajiro balse nafsigay geysatay ayadana way ku soo socotaay oo ku harimaysa halka balse waxaan idin sheegayaa ummadeena Soomaaliyeed inaan ma aragtay aad ugu mahadsantiin soo dhaweynta noo dhaweysatay hadarna wadankeena iyagana halkan waa wadankeeni balse dadkan oo dhawaan laga soo barakiciyay deegaanada maamulka Somaliland ayaa ugu dambeyn maanta soo gaaray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug Cabdinuur Farax Xasan Hon Cable TV Dhuusamareeb